jiray kaaboga qaniyada boqolaan sano tagay bahalkii ku cuni jiray kaaboga qaniyada habeen wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo maqlaysaan oo noo dhegaysanaysaan waa idaacadda Norway Voice codka Norway idaacadda afka Soomaaliga ku baxdo ka dhisan caasimadda dalka Norway daawade dhageyste waxaa barnaamijka caawa marti noogu ah injineer Maxamed Abiib Maxamuud oo ah nin Soomaaliya dalkan degan in muddo aanu la soconay xaaladihiisa mahad waa nin lagu haysto sharciga uu dalkan ku haysto lana yiri halka aad sheegtay inaad ka soo joogto kama soo jeedido Soomaali ma tihid barnaamijkaas ayaanu caawa barnaamijkan jimcaha baxaya idaacadda Norway Voice aanu ku soo qaadanaynaa waxaanu qaadanaynaa breaker dib baan isugu soo noqonaynaa daawasho iyo maqal wacan injineer Mahad Abiib Maxamuud waa nin la yaro dalkan degan in muddo ana deganaa daawadayaasheeda hawada nagala xiriir dhanka Facebook iyo dhageysigaba waxaanu marti uga dhignay barnaamijkan in uu nagala qayb qaato si aan wax uga ogaano xaaladiisan taagan maanta lagu sugayay waa maalin jimco ah waxaanu ku sugannahay bartamaha magaalada Oslo ku taalo xaruntan raadiyaha Norway Voice injineer Mahad soo dhaw ku soo dhaw codka Norway idaacadda afka Soomaaliga ku baxday halkan ka dhisan waan dhawahay walaal maasan mahad waxaan la soconaa soo dhaw marka hore waxaanu la soconaa xaaladaada in badan oo Soomaaliya oo dalkan degan tira 40 kun degan in badan oo caalamka degan oo dalka Soomaaliya degan inta telefishinada ka aragtay waa arrin xasaasi oo la socdo bal marka hore intaan barnaamijka gelin waxaad iga warantaa xaaladaada caafimaad moralkaaga bal iga war أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مركب كوباد وحنو مهد علينا Norway Voice oo adigu daadihinaysid barnaamijka caawa walaalkay Xasan oo waad maasan tahay sida sharafta leh adigu axsunteen habeenkan caawa maanta oo jimca mubaarak baan leeyahay walaalahayga Soomaaliyeed dunida dacaladeeda ku nool inta dalkeena hooyo jooga waxaan u hambalyeeynayaa madaxweynaha sida cadaalad ee hufnaanta loo soo doortay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo marka xiga waxa weey walaal xaaladayda caafimaad waa fiicanahay alxamdulillah qof haduu aliis ku kalsoon yahay waa qof de tamar leh oo awood leh oo muslim qawi waxa la yiraahdaa ninku markuu aqoon leeyahay aliisina ku xiran yahay marka halka caafimaadka waa fiicanahay alxamdulillah waayahay oo ma santahay injineer dhowrkii bilood ugu dambeysay dalkan dagaal baa ka socday adiga kugu socday adna waa dagaalamaysa laba dhinac buu ka socday maxkamad dacwad lagu furay oo la sheegay in aadan adigu origin Soomaali ahayn lagu diiday sharciga lagu siiyay dalkan aad in muddo aad ku noolayd lagaaga cistay shaqadan lagaaga joojiyay bal waxaad nooga warantaa halka ay wax marayaan hadda walle waad ka dhawaajisay waaxda maxay socdaalka iyo jinsiyadda dalka Norway ayaa taariikhdu markay ahayd 2014 weerar ay soo qaaday kadib markii qof Soomaaliya oo inaga naga dhasho walaalkayga uu iga been abuuray wanjalaad u diray dalka waaxda jinsiyadda iyo socdaalka dalka Norway ee UDIda la yiraahdo waati hore loo iri geed u hadlay oo iri gudinay ma goysiday gobolkay haduuna kugu yaal ma goysid marka nabarkaas waa haraati ka timid qof walaalkayga oo Soomaaliya hasahaatee annada waxba lama hadhino waan istifaacay Soomaalinimadeedana تأشيك كوما جرتو أفكا أنكو حلا يافكي هويا مركا الحمد لله وان استفاعي ملفي عنا وإي مريسا محكمة دنا
insha allah bisha 22 ku ballansanahay nimankii dacwo ogayaasha insha allah waxaan insha allah rajaynayaa qofkii been abuurka keenay inuu maxkamadda yimaado inkastoo magaciisa iyo telefonkiisa iyo emailkiisa ciwaanadiisa aan hayo hadda alxamdulillah ku guuleystay 2 sano barka bacdi si aan u dagaalamayna inaan u helno xogtaas aan helnay maanta arintaasna insha allah waxaan walaalkay Soomaali leeyahay kalaaman leeyahay dacwadii maxkamadda kale ayaa noo furi doonta waayahay bal aan u baxno breaker mahad dib aan isugu soo noqonayna dhanka farsamada aan dib ugu noqdo wararkiina badyo calankiina beegsada wararkiina badyo calankiina beegsada waayahay markale habeen wanaagsan Norway Voice idaacada afka Soomaaliga ku baxdo ka dhisan caasimadda dalka Norway injineer Mahad Abiib ayaa marti noogu ah daawadayaasha dhanka Facebook nagala socday iyo kuwa dhageysiga markale soo dhawaada intaynan Mahad sheekadan socotay aad cidda wax sheegtay cidda ku soo ogaatay aan loo gudbin waxaad noo sheegtaa markii qorshe saan oo dhaco arrintan ma aha mid khusaysa kaliya dad badan oo Soomaali oo ajaanib ay khusaysaa dad baa sharciyadii lagala noqday dad baa sharciga la siiyay ilaa lagala noqday tan waxay tahay midkii baasaboorada jinsiyadda dadkii haysto tiro badan oo kaliya aadan ahayn dadkaas tiradooda intee la eg tahay warsan iska haysan horta dadka la rabo in sharciyada haddii horta category u kala baxaan annagu waxaan sameynaa urur leeyahay rank sport gara oo u dagaalama xuquuqda ajaanibka laga tira badan yahay dalka Norway ee jinsiyadda haysta amba kuwa haysta sharciga la iraahdo magangeliyada amba deganaanshaha amba uphold ila tirsaha yar ee sanadkii walba la jadiidiyo marka tira ahaan 1600 oo magangeliyo doon ayaga yaa la hadal hayay laakiin 160 wax ku dhow baa loo diray tilbaaka kaal wax la iraahdo waxa kaloo jira dad gaaray ilaa 200 oo buusatin stila tilsaha amba residence-ka loo diiday oo shiki laga geliyay deegaanka uu ka soo jeedo Soomaaliya deegaanka sheegatay maahine waa deegaan kalaad ka timid baa lagu haystaa Soomaali dhexdeeda is wajashay iyo Facebook iyo lacagaha xawaalaha ay dirayaan marka arintaasi tiradaasi intaasay qolada tahay 200 gaadhaysa waxa kaloo jira dadka dhalashada citizenshipka anigu category-ga aan hoos tagayo waa dad gaaray lagu qiyaasay ilaa 500 oo qof laakiin hadda 126 qof ayaa sharciga lagala laabtay 9 dalka way ka baxdo meelay cirib iyo jaan ay lugtooda saareen lama yaqaan waa imisa Soomaaliya intaasi 80% baa Soomaaliya waayahay marka arrinta waa lagu wadaagaa dad badan dabcan maxaa keenay kaliya in arrintaada ay ka duwanaato dagaalkana soo gasho caawis ma ka heshay dadkii kale ka wareysa horta dadkaas intaan ku sheegay dabcan waan in badan baan ka warhayaa dhammaantood kama wada warhayi laakiin tira koob ahaanna waan ka hayaa maadaama aan anigu aan kamid ahay dadka afayeenka u hadla ururka Ranks Borgare waxaan isku daynay inaan xogta ururino dadka dhibanayaasha xogtooda aan ururino aan qowl midaatay dhawaq midaatay meel u wada u jeedino marka dad badan waan hayaa inkastoo magacyadooda rabin inaan inta ka sheego iyo maxay ahayd ciwaanada xogooga marka horta aniga arintayda waxa qayliyay waxaan ku dadaalnay in aan horta xogta ururino xogtaana u geyno golaha baarlamaanka xisbiye kala duwan sida xisbiga Arbeys Party xisbiga Labour-ka la yiraahdo xisbiga Center Party xisbiga SV xisbiga Rot xisbiye badan oo asxaabta baarlamaanka ku jira ayaan la kulanay gudiyadooda kuwa maxay ahayd baasaboorada ee la yiraahdo Communal of Volvatnings Committee iyo kuwa cadaaladda ee la yiraahdo Justice Committee waxaan hor dhignay tabashadeedii iyo cabashadii Soomaali anagoo ka duulayna dadka laga tira badan yahay dalkan jooga gaar ahaan 30 dal ee la beeg timaabsaday marka alxamdulillah qayladaanteeni way gaadhay golaha baarlamaanka waa motion ka yimid waa motionkii aqlabiyad helay waa bishan aan ku jirno
sagaalkeygii dood ay ka dhacday mooshinkaas kadib bisha 14 bisha saddexaad 14 yaa qalinka lagu dhufan doona hadduu ilaahay idhaahdo kol baarlamaanka u dhan hadduu ilaahay idhaahdo waa guul aan u soo haynay Soomaalida iyo ajaanibka laga tira badan yahay iyo maxaa kaloo waad la socotaa dadkii baasaboorada loogaga dhajiyay Ocean Furthest amba meesha tuulada uu ku dhashay lama garanayo ay Soomaalidu kamid tahay 30 dal ka koobnaa dadkaasina waxa maanta wala socotaa dadku waa kuwa ku ordaya maxaa la yiraahdaa folka registraha si loo bedelo dadaalkeenii baa keenay mirahaas waxa kaloo xitaa la socotaa in UDA website-ka UDA.no lagu soo qoray qaybta qawaaniintooda iyo wareegtada in wareegta ay soo baxday bishan aanu ku jirno 6deedii oo la idhi dadka baasaboorada guduudka haysta in dib looga qaado arintaasi waan hakinaynaa freezing baan gelinaynaa taasina waa guul soo hooyatay Soomaali iyo dadka kale oo dhan ee laga tira badan marka dadaalka waan wadnaa waxaan rabnaa dadku inay haddana iskaashadaan gacmo farkaliyaati foolma dhaqde in intii aqooniyaan ee Soomaaliya meeshan joogta hadda beritoolo hooy arintan waa principialt ma had wax quseey ma waa albaab la raba in la fujisto si loogu soo dhaxdhaco marka inaan iska moosno iyo waajibkeena ah annagu difaacayna milgadeena iyo karaamadeyna iyo waxan dalkani xaq uu nagu leeyahay iyo xaqaan ku leenahay waajibkeena marka leedahay waxa leedahay anagoo Soomaali ah inagoo Soomaali de waxa la yiri geela waa la wada jirtaa waana la kala jirtaa waayahay Soomaalinimadii shaki baa gasho dacwad ku jirtaa yaa cadeyn ka hesho waraaqad wadataa Soomaaliya la hadashay madax baa kula soo hadashay waraaqa lagu soo qoray yaa way qofka Soomaalinimada cadeeyay walaahi horta waad ogtahay waad ka dharagsan tahay cid cadaysay hay'ado badan oo xukuumadeena ah maxaa la yiraahdaa wasaaradda arrimaha dibadda maxay ahayd gobolka Banaadir maxay ahayd hadduu rabbi ku idmo wasaaradda difaaca taliyayaasha difaaca maxay ahayd madaxa baarlamaanka Professor Jawaari oo dalka Norway xitaa ka soo jeeda intuba way soo cadeeyeen laakiin waxa nasiib darro dalkaygii hooyay xukuumadeedii in la idhaa ma jirto marka aan dad u celinayna oo way jirtaa marka dadku ay xaqoogi iyo wixii cadeynay identity-kiisa miiska ay soo dhigaan la idhaahdo waxan waa qashinka ku dar oo dawladda Soomaaliyeed waxay keentay ma aqoonsan dal jiraba ma halay marka waxa weey arintaasi waa arin aniga aad iyo taabatay waan jira dalkaygu haduu jirinna de Soomaali ma jirto wax la cadeyn karana ma markaa de Soomaaliya oo ma jirin de Soomaali ba jirin waxa weey waxa laga hadlayaa wax muqaddas ah jiritaankaygii baa laga hadlayaa dalkaygii haduu jirin geeyigaygii Soomaaliyeed ba haduu jirin de adna ma jirtid way ma hado waa arin weyn baroorta origa ka qeylo weyn marka anigu taaban maalkaygii oo dhan aanu geliyay gurigii intaan galay lacag waxaan rushay 12 sano ayaan geliyay anigu han dhinto intay magaca Soomaali dhiman lahaa halka waxa degan 40 kun oo Soomaali ah oo tiro badan oo Soomaali ah oo arintaada la socdo markii dhibsaan oo kala dhaco ba la kala ogaada dadkaaga Soomaaliyeed naxariistoodii wax qabadkoodii iyo Soomaalinimada su'aasha hadaan ku weydiiyo dadka Soomaaliyeed Soomaalinimadu xagee joogtaa alxamdulillah horta sanku neefloodan Soomaali baa u horeysa ana taas waan aaminsanahay maxaa yeelay dadka ugu wanaagsan ugu laxjecel badan ugu kalgacayl badan Soomaali weey adduunka insha Allah ilaahay waxaan ka baryayaa madax wanaagsan oo u turaysa dadka inaan helno oo naxagta dalkeenu waa barwaaqo dadka iyaguna waa dad wanaagsan Soomaalidu waa dadka ugu fiican oo ilaahay khalqay xoolaha waxaan yaree juujuucdana sokeeye baa meesha taale taana de mabda baa lagu saariyaa aqoon waqtigeeygiina waan joognaa Soomaali maanta way garatay waxay garatay wixii u dana balan ku noqono toddobaadkii aan ku daro waxaan ku darayaa gargaar badan baan helay haday tahay maal haday tahay muruq haday tahay duco haday tahay isgarabtaag waan ka helay walaalahayga Soomaaliyeed dadka ajnabka na magan galiyayna waan ka helo alxamdulillah baan lay toddobaadkii la soo dhaafay waxa jirtay saa sheegaysa horinkii baa jiray la horgeeyay stuutinga waan la soconay waxyaalaha ugu daran ee la isweydiinayo waxay tahay maxkamadii iyo UDA-dii waxay soo dhigteen cadeymo haystaan iyagu ay leeyihiin waa isku kalsoonahay saa sheegaysana cadeymihii Soomaaliya laga keenay dawladeena hadaysan ogoleena waa dhibaato ambassadorna uu joogo Stockholm oo ay leeyihiin dawladda Soomaaliyeed baa boqorku wuxuu ka qaabilay waraaqihii hadaysan aqbalayna waa dhibaato inteeda la eeg waay maxkamadan 22 bisha labaad baa la galaya 17 kulli adigu diyaar baa tahay maxaa isleedahay cadeymaha ayaan maxay tahay
هذا وقت أشياء دون عدي ما يحيان وحوي ورت عدين رسمية أو concrete evidence وح ليلا أنا يقول ما حيان لكن كتين اللي يقول قول على ربع مو بتاعي وكأت كوي وحماشتها حمت كوجرت dadka ay yiraahdaan waxay wax kale wali way wax la yiraahdo spion weyn kan arinta soo maxaa ka jira walaal horta aad baan xasan uga xumahay in la yiraahdo spion dawladu shaqeeyo ruux isagoo da'yara oo cunugo sabiya magangeliye dalkan weydiisto 14 sano jira waqtigee baaban haleeli lahaa inaan la soo tababaro spion la iga dhigo وسؤال ماشي تعلرت قفك أقلق قبا ويسويديو أنا عنقو سبيو وحبك لجرين أو قرآنك وحبك يركع قان يا دلك كنيمد نلا شيء إذا أنت بضب بنيت تندقنا صدق يا أفر جربة الناس سفرين إلى سفر هذا أساس من السعودية وحي هذول ليه دخولي دي 3 ويكس ما واحد تبرنا غكر ما هي ما 3 ويكس ما تبر جاجوس يا مخابرات لو قال لك وارنا لك مسعود لكن حنت سويجرتا ورك الله مقلي كم تهي إيه بدي عدي ما نكربا عدي أنا هي هيدين وحجاجوسا توا إلا عديو حقون تبينا يلا أركي إيميلان دير يلا أركي ده أنا وحجاجوسا يلا أركي دولة دان كحرنا على أركي أرنت وين لقى أنا وحن قبا إنا يكفير صدق تنجاجوس كم وايه جاجوس كم كنا قلنا إن بدل وحن مغلى له waxaa jira dad Soomaaliyeed oo aniga nafsadeedii halagay mana sheegay magacyadooda maxkamad baa la marayaa ma ka baqaysaa dadka sanad maxkamad yimaadaan oo la soo cadeeyo qofkii la keeno anigu waa taan dalbay lawyer-kaygana weydiistay in qofkii i wanjalay la keeno sidoo cadeeyo magaciisi waan hayaa emailkiisi waan hayaa telefonkiisi waan hayaa inuu ruux nina yahayna waan ogahay oo magaciisi baan hayaa marka qofkaasi waxaan maxkamadda ka dalbaday because aniga wax weyn bay ii tahay qofkan waxa ku kalifay inuu noloshaydiyo idil burburiyo inaan wax ku ogaado waayahay qof wax bartaata dalka degan engineer cilmi kugu filan leh aqoonti ilaahay siiyay garashadina leh dalkan sharcigooda markii wax xukumayaan ma waxay ku xukumaan ma dhici kartaa inay ku xukumaan sirban helay oo iyagoon cadeynti keenay xukun qaataan mise sharcigu qofkii iyo tibiskii la helay iyo wixii la helay in lagu cadeeyo maxkamadda la keeno Soomaa sharciga deewaataan u dagaalamay walaal inta soo sano أنا محكمة لي جيم بالله حكومة شرعيا قوانين international كي يكون ذلك النرويج كوي ذلك النيو هي الصومالية ما قوانا يسوقف أنت أنا كوسو أو قدامي حتى أنا أنكو حكومة هورين اللومار وين أودها الله كلا صار أود executive كا يأود محكمة دو وين اللي بكلم مدح بنان نقطة مركا أنا جوح الله يجو حكومة أودي executive كي يتي محكمة الله وضو حيد جزية سؤال الفايز. وياه إنجنير مهد أبي بنلجوا مرتين برنامج هو أنوسي ودنا قريب وحنا قاعدين بريكة مركز الصلاة من وحنا كود هذا دونا مستقبل كيسة محكمة دعي دونته حالة جودة جالية تاجر وبهاي بريك بنو قاعدين اسمع قلبي. لما كانت لعورية شقار أردي أردن الليل هلا إتو محجة وضع عرمسا شقار أردي الليل هلا إتو محجة
ku ombaxne ebow mahada inaan isku filaane la aqoonsaye alla magane la ogaye inaan isku filaane la aqoonsaye waayahay habeen wanaagsan mar kale injineer mahad abiib dalkan aad looga yaqaano dagaalna dowladda norway iyo u d ida la galay in muddo ana kula jiray si uu uga badbaado sharcigan la siiyey dalkan uu kusoo noolaa in muddo ah ilaa markuu yaraa in dib loogu celiyey taasna uu ka xigo inuu dagaalamo dalkan sida uu sheegay uu ku dhinto lagu duugo mahad abiib mar kale soo dhowow dagaal gacmeed maahane waa ku qalin dagaal qalin buu galay haa dagaalkay ku jirto waan ognahay waxaa la yidhi waxaa loo soo gudbay xilligii waxaa la yidhi mahad warbixin badan buu bixiyey raadiyaal iyo telefishinno la kulmay in badan buu socday horta warbaahinta norway marka la yidhaahdo aan ku weydiiye ma mid si khaas adig kuula jirto ku hilisaa jirta mise xaqooday gudanayeen horta waxaad ogaataa wargeysku amba warbaahintu marka ay ku imanayaan labada bogba way fiiriyaan arrinta kayska dhanka dowladda iyo dhankayga marka iyagay u taallaa amba anay la jiraan amba iyagay la jiraan marka waxay sameeyaan ka madax banaani maxaa la yidhaha etefoshkning ayay sameeyaan investigation bay ku sameeyaan labada dhinac wixii ay arkaan bay banaanka soo dhigaan dad baa waxay aaminsan yihiin markii aad tv twoga la hadashay nrkoga la hadashay waxay ku weydiisteen in ay galaan bagekaaga iyo noloshaada iyo arrintaada ay baartaan ogolaashaad saartay riski ma ahayd maya waxaan ka cabsadaa jirin waayo maxay ahayd wax la qariyaba ma jira meesha waxay ka hadleen in interview uu aabbaha soo galay soo qaadeen oon arrinta ku jira markii la soo ogaaday allahu naxariisto odaga waa dhintay interviewgaas iyo qorshihiisa suu ahaa iyo odaga suu sheegay oo aan hadda waxba la waagan karin oo uu dhintay allahu naxariistee arrintaas maxay soo kordhin kartaa cabsiday kaa haysana maxay tahay inay been ka qoraan ninka odagaa dhintay horta aad baan uga xumahay aabe allahu naxariistee wuxuu odhan wuu idhi in laydhaa aad baan uga xumahay waa wax aniga i taabatay waa waxaana ka filayn waxaana ay soo dhigeen haddana hadaladoodu da iska hor imanaa marna waxay leeyihiin aabba xamar buu ku dhashay wuxuuna waana soomaali waa ay caddahay dhinacna waxay ka leeyihin aabba waa ree jibuuti marka isagiina ma noolo nasiib isagiina ma noola afkii joogay ka jawaabi lahaana nasiib maanta carrada waa ka hooseeya qoraal unbaa lahaya ha marka aad baan uga xumahay qof dhintay in la idhaa wax lagu masabido waxaa la idhaa soomaalidu af jooga looma adeego laakiin waan ka xumahay maanta ma joogo mana la soo heli karo allah yarxama hawshaasaa soo martay waxaa ugu dambeysay haatan 21 bishan 7 oo la gelayo maxkamad baa la yidhi maxkamadaas bal nooga waran dadku waxay leeyihiin dalkan maxkamada markii la galo go-aan bay sugayaan soomaalidii waxay isleeyihiin talaada arbaca khamiis go-aan baa la gaarayaa shoog baa kacsan dadkii waa isla hadlayaan 21 aad baa loo sugaya dad soomaaliyeed oo badan baa nala soo xiriiray oo waxay leeyihiin maxkamadan dhacaysa waa go-aankii marka bal nooga waran kulankan maalintan diyaargarowga u tahay iyo waxa dhacaya iyo xaaladda nooga waran waxaan la wajahan maxkamad 3 maalmood ah 21 waa maalinta u horeysa ee labada dhinacba is kulmayaan isfuudarayaan isla maalinta waxa dhacaya markeering waxa la yiraahdo mudaharaad hadaan yiraahdo waa qalad laakiin markeering waxa weeye waa muujin in ma hadla taageersan yahay lana maaydo lagana horjeedo arrimahan noocan oo kala ah marka maxkamadda horteeda waxa lagu ballansan yahay ururka Anerangs program anigu kamid ah iyo agaasinka iska lahaa iyo Soomaali badan oo taageerta ururka oo iyaga sharciyada laga laamin dad maxaa la freely u caawiya tabarucaad Soomaalinimada muujinaya iyo ajaanibka u heelinaya iyo dad cadaana iyo arrintan la wada dadkaasi waxay ku qaban doonaan maalintaas markeeringaas baraha maxkamadda saacadu marka ay tahay 9 subaxnimo wanaga u sameeyay xayeysiis 9 subaxnimo bilaami doontaa ilaa labada meesha waa la hor joogi karaa waxaan dalbanayaa oo walaalahayga Soomaaliyeed weydiisanayaa marka koowaad inay soo duceeyaan faatixada ay soo maraan marka xigana intii karaysa kii bas wada kii taxi wada kii shaqeynaya intii karaysa fursad inay ka imaadaan shaqadooda inay walaalnimo igu heeliyaan maxkamadda horteeda imaadaan maalintaas iyaan walaalahayga Soomaaliyeed marka imaashaha maxkamadda wax qoraal oo aad hayso bal in dadkaasi ay qaylin karaan inay microphone qaadan karaan in ila dibadbax markay tahay booliisku in la weydiistaa la weydiiyaa la yiraahdo sharciyeysan oo dadku markaa yiraahdaan this is what we don't want this will never happen
kama dhici karto waa rabnaa waa wiilkeeni saasa ugu dagaalamay laakiin waxaa laygu yidhi lama oga dadku inay istaagaan oo solidarity tahay kisay istaagaan oon la hadlin iyo in la qaylin karo la dhihi karo loo mahadstaana inorye waa la dhihi karaa walaal waan ka haysanaa ogolaashadaas booliiska waan ka haysanaa ogolaashadaas komuunka uslu waan ka haysanaa ogolaashahaas maxkamadda in dadku bannaankayga baraxeega soo istaagaan ay tirigyada laamigaday marayaan ayna xidhin u banneeyaan laakiin baraxa ay isku ballaadhiyaan ay joogsadaan welibana plakaadya baanu haynaa garamaa lasoo daabacay waxaa lasoo daabacay marooyin ay ku qoran yihiin u hiiliya cadaaladda iyo sinaanta oo caddaan badan ay nagala shaqeeyeen alxamdulilah iyo soomaali badan oo dee garanaysa danta guud waxay tahay marka waa free maalintaa waa la imanaya laakiin waa inuu anshaxu ku jiraa waa inaan milkaha iyo karaamada iyo sharafta soomaaliyeed muujinaa annagoo ka dhidhinayna dulmiga dadkeenna soomaaliyeed mahadun maahine dadka kalena lagu hayo marna shaki maku galay intaa howlahan ku jirtay marna shaki maku galay in sidii loo baahna aan lagugu helin dadkaaga absolutely not anigu waan isku kalsoonahay allana waa ku xulanahay inaan guulaysanayana waan hubaa hiilada aad dadka uga baahantaan ka hadlaya hiilada aan dadka uga baahanayo helay dadku dee kuma soo wada gaari karaan laakiin intii soo gaadhay waan ka helay kuwaani soo gaadhina qalbiga iga duceeyena waanu mahad celinaya allaha ugu bedela khayr baan dabcan dadku taageersan oo jira laga yaabaa khadka telefoonka dad badan ma sii deyn karno haddii uu jiro waa 96 93 waxaanu qaadi karnaa 2 qof 3 qof hadday suurtagal tahay break baanu gelaynaa waa ismaqlaynaa sagaashan iyo 6 73 51 92 mahad waxaan filayaa qof khadka inuu ku jiro oo Soomaaliyeed oo la socda barnaamijka soo dhaw magacaaga iyo halka joogto naga soo waciis mudane حاول السلام عليكم وين مغليسا وعليكم السلام ورحمة الله حاول حسن وين سلامي أديك يو مهد الله مداني استفيدنا واي رالي هذا دنك فرسمada yar laga xaliyo oo ku maqlaaya magacaaga hadaa ii sheegto fikradaada qofka tahay halka Amir soo dhaw walaal walaal Xasan aad baan ku salaamayaa adiga iyo Mahad Abibo salaamullahi wa ku salaamayna Mahad Abibo waxaan leeyahay maxay tahay waan ku soo duceyneynaa maalintaasna waan ku soo bixi doonaa anako gabdho iskoolta maantaydan markii feeriyaha la galayay waxaan sameeynay inaan maanta soo baxno isku balansaneynay inaan walaalkan u hiidino wallahi si kaliyana ma ahan dad badan oo wuxuu u noqday oo Soomaaliya uu matalaya oo soo hadirin amba markin ku adagta siday meelahaas dhan u galaan oo hadlaan insha Allah uu guuleysan doona Mahad duceynayna waan soo bixi doona waan u hiilinayna maxay tahay sawir muuqdo oo sawir fiican uu u yahay maxay tahay Soomaalida marka waa mahadsan tahay laakiin waxa tiri bal igu cali iskuulkiina oo dhan ardada ka hadlaysa markaas
ها أردنا ما أنت وحنا ديارين يعني أنا ده إنه ولا يالو صباح وهالكا مالين ومحيط ساعة غير أقوى سو استاجنا أول إسكال يوح مالك الوالد شرنا دنا هنا aadiyaad سان شو كتير سنانو in la suheliyo ها إنا أسكوه لنا أسكو صباحنا ولا كان يعني ما دام كتن قرينه يعني إنا صباحنا أو ما أركنا صباحنا إنا كحنا تصنع ضدك مظاهرات أنا كوبدان إنا كسقيد كلنا ربنا إن شاء الله aadiyaad oo waa aaminsan tahay Soomaaliya Munir haddii arintan lagu fuliyo mahad oo xukunka qabto oo nin Soomaaliya dalka laga dhoofiyo in aaskiisi kama imaan Soomaaliya la yiraahdo in arintan ay effect gareynayso dad badan oo annaga naga mid oo dalkan degan maalinta kale iyaga la soo aadi karo aadi u saameynaysa aadiyaad لكن إن شاء الله وقولي سنة يا أبو أنا كده أنا كتشعل وكوسو دعينا والله مركز توانت عيا ما هاد أدب بان ما أكسينه يعني يكويا هاي ولكن إن شاء الله لكن خير كده ما نيس أبو نيت غير وشيء بان لي هاي وأنا كوسو بحدنا ودنا قولي صدام تاو إن شاء الله ما هالسنة أميرة لبعتين الكوجا ما بلا نص وإحنا بدنا السجال كهدي الله ودر عليك أبي ونكسن ما هاد وحصل هذا الشيء قبل الصومالية دو أدكو تاجرسن waxay tiri iskuulka dhan baan fasax ka qaadanay 96 73 51 92 waxaanu sii dayn karnaa hal qof oo kale ama laba qof oo kale haday suurtagal noqoto waxaan filayaa inuu khadka qof ku jiro haatan soo dhawow halkani waa Norway Voice baanu ku sugannahay injineer mahad baan la jooga caawa barnaamijka nagala qayb qaadanayay waad la socotay kulli waad daawanaysay bal aragtidaada iyo fikradaada halka joogtay magacaaga sax صاحب مدعو محمد عبدويان ودك نوربن كوجوغا marka arintan ma hadlo arin anaga dhanna saameynaysa marka ninka waa keen insha Allah uu guulaysan doona marka walaalahay kale ma taqaana inay iyaga soo duceeyaan maalintan laga soo qad galaan anigu arintayda yaa rajeynaya insha Allah xageed diganta adigu Oslo Soomaaliya Oslo ma degan waxaan deganahay magaalada Norway okay ma marka nama soo gaari kartaa adiga shakhsiyan ma insha Allah waan imaanaya maalinta soo labaatan ku dhima 22 bisha 2017 بس إن شاء الله ما أنت لا تكون تبحثنا هاي مركا إن شاء الله مرة في قاطي مركا إن شاء الله ما أنت أمانية هل كي نرشق مجال جوكت حاجات وقعت فيلا لا فيلا جو حاجة كنت هلا وهي كونفورتا كنا قبل كنت على كلمات أوكي أساس يقولون فوق ساعة يربي ينجد دتك مجال ده جواس ده دريك ولا السعودان حالتنا محكمة العسمة وجه الماشي دتك ده الصومالي ده يجينا مركا أنت زوارنا مركا ثلاث عن أردنا أن كده على مركا إن شاء الله أنا كان وجلسنا دونا وأنا أخبرتني عدة هي نتقنا من آدم يباهي أيضا بركة مرمين نتقنا وتيم دونا إن شاء الله شرعي تاور كايو مركا إنت ورثنا الصوماليين بالرأي يركوا ليان مركا الصوماليين وحافي عندنا إثنين جيا نتقنا في هذا وكل حتى الرستو marka in de Soomaaliya community la adkeeyo mataqaana dad mataqaana qareen wala wixii arintan aad wanaagsan in la sameeyo ka soo joog aad baad u mahadsan tahay walaal waa ku mahadsan tahay kolkan soo wacday waqtiga qaaliga aad soo siistay aadna ku mahadcelin noogu salaam dadka kula jooga tuulada aad joogto una sheeg in maalintaas la subahay intii awooday ee soo bixi karta aadna waad u mahadsan tahay saaxiibna geliyo وعليكم السلام هاد ninkan odaga wuxuu ka dhawaajiyay aqoonyahan dad baa waxay isweydiiyaan ninkan la haystee mahad hadduusan injineer ahaan lahayn shaqo haysan lahayn dhalinyaro ahaan lahayn dalkan uusan isagoo yar imaanin ee Soomaali u ahaan lahaa qaxooti ah maxay noqonaysaa bal intaad ii jawaabeen qadkan aan qaadno mahad ee qofka ku xiga adoo raalli ah qofkan soo dhow habeen wanaagsan Norway Voice halkani waa Norway Voice mana maqlaysaa saaxiib magacaaga soo dhow Norway Voice ku soo dhow waxay la joogaan injineer mahad fikradaada iyo aragtidaada halka joogta hadda noo sheegtay magacaaga ما شاء الله ما شاء الله مقي عبد الله برادر أدقي وماضي السلام يا سلام الله سودو السلام عليكم برادر وحنجي وأوصله نك ما روح أقول عادي هذا وحنا هاي إن شاء الله تعالى سنين كانوا كسوق قلينا أنا وشغلين فتح ويدي سنة مركب أنا سنين تإلهي كوبوري إن شاء الله تعالى وثلاثة أيوة والله خير ثلاثة وما هالسنة ولا العود كاجا يوقت كان صوصي ساعات بعض ما هالسنة حاجة وما هالسنة سجاشني اللي احتضباتني سدح كنت نيكو سجاشني اللي بغى تلفون كان نقصه هلي كرتان أنا نقصه وعي كرتان سياد برنامج كانوا واقع قادتان تطبق المسي دين كرنا لكن هل قف لما قف وكلوا أنو قادنا ما هذا نكون نقضي أنت بالخط كذا عن سكود إنه قف كرحجين أنا قادنا ما هدي أنا قبض تغيرت فرصة إنه سيدا برنامج وما هالسنة هاي سودو خدكي بس توصل ضدك يسوق فرميان وقت بدنا ما هي نسودو مقعد نوشة ولا الكري ونورو فوي سودو موري رست يماد ولا لا ديات بندي سلامية سودو ولا سودو مقعد ديات بندو مقعد أحمد عبد الله وحشر مقعد برجن ما شاء الله أي
hawshan waanu ka fognahay hase yeeshee waxaan qalbigaanu kala jirnaa ma hadiyo inta soomaalida ku dhibaataysan dalkan aan joognaba runtii ducada iyo wax kastoo maaragtay arrintii ama aad ku kacaysid inta kale dhibanba insha allahu tacaala garab iyo gaashaan baanu nahay waananu ducaynaynaa adigana weri ahaan dee aad baan kugu hambalyaynaya walaal waxaata weri aad arrimaha soomaalida aad iyo aad ugu shaqeeya waa mahadsantahay biladii maalintii dhaweyd iyo bilada kalaan kugu darnana insha allahu tacaala dib waan ku siinana maasha allah bergen baa joogtaa bergen baa jooga waayahay ma jiraan dad dhibkan oo kala haysto baasaboorada laga ceshto soomaaliya waxaa war u hayso adigu ha way jiraan dad fara badan intaan ka warhayo dad dhibkan iyo dadkeena haystaa waxa weye inta badan dhibkooda way qarsadaan runtii dadkuna waxa weye marka dhibkii qarsadaan goor dee wax waliba kala dhaceen oo lagu kala tegoyin bay odhanaya waxaasa haysta marka intaan ka warhayo dad badan way jiraan imika tira ilaa 12 qof aan ogahay dad badan oo kale waxaa jira iyaguna dee waxooda maaragtay hoostaa ka qarsanayo dee magaranaysa iyagu ceebba marka ma garta waxaan waa dhib ilahay nagu keenay moogta aad iyo aad waa mahadsan tahay una sheeg in mataqaanaa ma hadduu dagaalkan ku jiro dad badan ee soomaaliya ay khusayso hadduu guulaystana ay guulaysanayaan nooguna salaan saaxiib waa mahadsan tahay mahad khadka telefoonka dadku waa badan yihiin laakiin ma filaya inaan waqti badan haysano dad badan la hadli karno bal iga jawaab su-aashan intaanan khadka kala qaadin injineer shaqo haysta waa lagu ammaanay halkaasuu ka shaqeeyaa la yidhi haddii aan rogo saacadda nin soomaaliya shaksiyo qaxooti aan shaqo haysan haddii booskaagu ahaan lahaa see wax u dhici lahay may kula tahay wallahi horta dalka norway cadaalad baa ka jirta maxkamada haddii la tago xaqiiqdii baad yaa miiska imanaysa kuma xidhno qofka aqoontuu leeyahay iyo kartiduu leeyahay meesha waxaa jira xeer yaqaaniin garta kala saaraya ciddii dulman iyo ciddii wax dulmaysa kala qabanaysa marka kuma xidhno aqoon buu leeyahay maxaa buu taray dalka qoys norwegian aa soo haystay iyo waalid waa laakiin maya dabcan anoo yar markaa nimid dad qoys caddaana oo soo tababaray oo iskuulka iyo luuqada iyo lahjada iyo dhan walba iga kabay waa jiraa alxamdulilah baan le iyagana waan u mahad celinaya welina waan la xidhiidhaa maxaa yeelay waxay igu leeyihiin abaal weyn bay ayay igu leeyihiin waayahay aan khadka xiga aanu qaadno telefoonka aanu qaadno qofka xiga aan jana siino soo dhowo walaal habeen wanaagsan halkani waa Norway Voice idaacad afka Soomaaliga ku baxdo jamciyaasha hawada soo gasho lagu wado in maalmo ka badan hawada ay soo gasho laga howlgalo soo dhowo fikradaada ma injineer mahad baa maanta ila joogo barnaamijka jumcahan igala qayb qaadanay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودي ولا. بارك الله فيكم حسن وجزاكم الله الخير إن أوصلا إن كلا صهر ليا وإسماعيل يوسف دابو إلهي سبحانه وتعالى أسقى وحده أسقى وحديده منطقة المسجد كوان الله قد عي بريها وندم صلاة كستوى الله دعنا ولكن إنه إلهي سبحانه وتعالى وبسوق هذا أسقى من يدها صبيت يعني إلهي سبحانه وتعالى وحو صبحا siin karta male waxa Allah subhanahu wa ta'ala u diidana cid soo qaadan karta marka tawakkalkiis Allah subhanahu wa ta'ala oo tawakkalayo waxaan leeyahay ma hadu si laba insha Allah tawakkal ala Allah wa fikr baleeda waa u duceynaysaa waa loo duceynaya insha Allah biidnillah subhanahu wa ta'ala waa loo imaana waa la garab taagayahay balse ilaahay subhanahu wa ta'ala tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka wax siiyo isaga ka qaado isaga u dhiibo بإذن الله سبحانه وتعالى ونهلا وحي الله سبحانه وتعالى ما شاء الله اسماعيل لنا مركب انصرنا على القوم الكافرين الله سبحانه وتعالى قوم كافرين تهنوا قرقاروا يعني الله سبحانه وتعالى مركب صاف الله مهنا من نبعنا ايقا واتضى الله هاي تضى تحت قلنا هاي تضى سودوي بس الله سبحانه وتعالى من نوقه لنا ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سيدة رجيني اسماعيل وما سنت ولا وايه اسماعيل انه كبحان في الايه اسماعيل وحيري ما كنت جرت اسماعيل waa ka baxay ismaaciil wuxuu sheegay in masaajidka xataa laga soo duceeyay marka gabadha iskuulka joogta ninka baargan joogay dadka kale guryaha jooga ducadu aad bay u badan tahay wayna shaqaynaysaa waayo aan ku soo noqdo barnaamijka aan ku soo noqdo aan telefoonada aan bal joojiyo inta si aanan su'aasha dambe aan ku weydiin waxaan jecel lahaa in bal biyo yar iska cabtid aan u baxno break hees yar iyo barnaamijkii aanu qaybta dambe aan isugu soo noqono shaqaala urdi alla ilaaha
habeen wanaagsan mar kale Norway Voice idaacada afka Soomaaliga ku baxdo ka dhigsan caasimadda dalka Norway barnaamijkan todobadii habeenimo hawada soo galnay waxa marti maanta igu ahaa niraahde injineer Mahad Habiib waana Soomaaliga isagu dacwado badan ay ku furan yihiin oo la cadeyn la yahay Soomaalinimadiisa Norwegian-ka hay'adda UDI-da ay ku haysato in sharcigan uu qaatay ee dalkan uu ku dugay uu sanahay mid sax oo been ka sheegay soo jeeditaanka dalku uu ka soo jeedo isaga iyo inta kale oo Soomaaliya dalkan degan waxa aaminsan inuu Soomaaliyeed yahay una ku dagaalami karo xuquuqdaasi walow uu haysto waraaqa cadeyn oo Soomaaliya laga keenana wuxuu ii sheegay in Soomaaliya dawladeeda aan la aqoonsanin in kiraad badan ay ka jirto khadka telefoonka cid kale ma aanu sii deyn karno barnaamijka qaybtii ugu dambeysay gabagabadaan joognaa mahad gabagabadii ku dhownahay xilli waxaa jiray dalkan aad joogtay oo siyaasadda aad gashay waad sharaxdo madaxweynahan meel ka ahaatiri state baa sheegatay si kooban adeeradan ugu dheereyneen ma tahay madaxweynahaas weli xukunkii mise waa lagala wareego qof kale aad ku wareegay siyaasi xukuumadda state-kaas aad sheegatay waana hay madaxii waay dastuurka horta waxaad ogaataa Soomaaliyeed nin kastoo Soomaaliya haybtuu doona ahaado inuu himilo iyo hididilo siyaasadeed la iman karo degmaduu doonana madaxweyne ka noqon karo marka wali jagadaas waa haystaa waana hay dabcan fikirkaas waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay mid tahay saddex baaba maqane labadooda joogta kala diri mayno waxaa jirtay ugu dambeyntii markii aad adoo telefishin jooga waxa lagu weydiiyey haddii lagu yiraahdo iska baxniyow Soomaali ma tihid ma Djibouti ku noqo sharci baa lagu soo siinayaa shaqadaada si ay ugu soo noqoto sidii dad kale hore loo caawiyay maadaama aqoon leedahay inta telefishinka istaagayso leedahay halkan hal igu duugo oo aad calaacalaysid haddaad istaagi lahayd oo aad dhihi lahayd ka waran anigu nin Soomaaliyeed baan ahay ma diidanaa aqoon baan leeyahay dalkayga dib ugu noqonaan ka shaqeynaa taas ma ka fikirtaa haddii maxkamadda ay ku guuleysan weyso inaad samayso ma laga yaabaa aad Soomaaliya u shaqo tagto shaqo raadsato aqoontaada ku shaqaysato dabcan horta waxa la yiri ninka maal maxay ka faqiir noqda iyo ka qalbigu madoobaado diinta ka faqiir noqda labada ka faqiirku waxa weeye ka diinta ka faqiir waay alxamdulillah maxay hayday waan aqoon baan hayaa aqoontii la igama qaadi karo laakiin hadday dhahaan in lagu diiday baasaboorka iyaga iska leh dawladda Norway marka horeba iyaga ay magan galiyay Soomaaliya hadday diidaan hay dhahaan Soomaali baa too waan ku diidnay xamar madaxweyne hadda talada qabtay madaxweyne shaqeeyna ku siiyo waayahay barnaamijkii caawa idaacadda Norway Voice ayaanu daawadayaal aanu intaas ku soo gabagabeynaa waxa marti ugu ahaan jireen Mahad Habiib Maxamuud oo ah nin Soomaaliya oo lagu haysto dhalashadiisa lana filayo in maxkamad maro maalinta 21 bisha 2017 inta barnaamijkan oo kala toddobaadka dambe habeenka Jumcada aan ku kulmayno toddobada habeenimo aniga Mahad iyo saaxiibkay Maxamed oo dhanka farsamada ii joogay iyo inta nagala shaqeysay barnaamijka hawada ku jirtay waa mahadsantiin waxaan idinku dhaafaynaa sida ay nabadgelyo nooli kulantiis maqal iyo aragti dambe xiiso leh toddobada habeenimo toddobaadka dambe hadii Allah uu dul raali ka noqdo goodbye شغال أردي هون أردن الله إله إلا